markii ay Israa'iil aqoonsi ka raadiyeen oo iyaduba go'doon ah kuna caan baxday boobka barakicinta xasuuqa dadka reer Falastiin taas oo ah wax qof kasta oo damiir leh ka murugooday waxaan markale cadaynayaa in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay dal xor ah mid ah dhulkiisa aan lagu kala goyn karin warqad ay Israa'iil qortay ama saxiixay Netanyahu oo isagaba eedeysana caalamka ka ah ujeedada aqoonsi ku sheegaas ma aha danta dadkeena ku nool deegaanadaas ee waa danta Israa'iil oo raadinaysa dhul ay isku ballaariso oo ay si sharci darro ah ugu soo rarto shacabka reer Falastiin ee dhulkooda ay boobtay kana dhisto saldhigyo military oo qalqal geliya amniga gobolka geeska Afrika gacanka cadmeed badda cas iyo guud ahaan bariga dhexe walaalayaal arrinkan wuxuu raad aan fiicnayn ku yeelan doonaa dhaqaalaha horumarka iyo deganaanshiyaha siyaasadeed ee dalkeena haddii si xigmadi ku jirto aanan u maaraynin walaalayaal dadka Soomaaliyeed ee waqooyigow اعترافku idinkama jiro Netanyahu wuxuu idinka jiraa dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee dadnimo diin iyo dawladnimaba aad wadaagtaan walaalaha Hargeysa ka taliya waxaan leeyahay ugu yaraan bal dib u milicsada wadada la maro hadiiba dal kala go'ayo South Sudan waxay gooni u istaagtay markii ay qancisay Sudan inteeda kale Eritrea sidoo kale markii ay isla garteen Ethiopia inay kala baxaan ayay gooni u istaagtay kala baxeen East Timor sidoo kale markii ay Indonesia isla garteen in ay kala baxaan ayay kala baxeen dhammaan kala baxaasi wuxuu ku yimiday heshiis siyaasadeed oo qaarkood lagu gaari waayay dagaalo 10 sano socday laakiin lagu gaaray heshiiskii siyaasadeed dhinaca kale waxa cad haddii dalkii asalka ahaa the mother country uusan ku qancin in la kala baxo oo heshiis siyaasadeed oo lagu wada qanacsan yahay lagu kala baxo in i'tiraaf la helo aanay suurtagal ahayn sida Taiwan ba ay Shiinaha ugu qanci weyday in la kala baxo gobolka Catalonia ee Spain ku yaalo oo ugu qanci waayay Spain in la kala baxo sidaas daraadeed haddaanan heshiis siyaasadeed la helin oo lagu kala gurto lagu kala baxo kala go iyo i'tiraaf iyo dawlado isbarbariyaan midna suurtagal ma aha walaalayaal bal kala baxa intaan u kaadin aan xoog gelino muddo kooban bal inaan midowno hadii aan leeyahay oo aan hubo inaan midoobi karno dawladda federaalka ana ay u fududahay wax kasta inay hurto ay u hurto in midnimo la helo hadii ay tahay garaawshiyo hadii ay tahay xaq dhiibid hadii ay tahay xukun baahin hadii ay tahay walaalo midoobay oo xoog midaysan hela diyaar ayaan u nahay waxaan diyaar u nahay wada hadal dhab ah iyo sugar dhigasho ayaa lagu xallin karaa wax walba jira annaguna dhankeena taas ayaan diyaar u nahay sidoo kale shacabka goboladaas ku nool waxaan u sheegayaa waxaa la doonayaa in deegaanadiina laga dhigo saldhigyo looga duulo dalal kale lagana huriyo colaado iyo dagaallo aydan idinku qayb ka ahayn danna aanay idinkugu jirin walaal bal fakar Israa'iil daris maahin
dana dhaqaale nagama dhaxeeyaan, dhaqan nagama dhaxeeyo, diin iyo hab nololeed nagama dhaxeeyo, weligeena nama dhaxmarin. waa maxay sababta ay ula soo booday ixtiraaf beenaadka maanta ay dadka ku dheer la xawsanayso? xaggay jirto 34 sano ee la soo dhaafay? walaalayaal, walaalka Soomaaliyeed ee waqooyiga ku noolow, yaan lagugu seexin in lagu yiraa danaha Israa'iil ee la sheegayo waxba kama jiraan. waa dhab, laakiin ogow, maanta ayaad fursad aad ku diido haysataa, ee berri yaynan ku calaacalin inaysaan wax noqonayaan ma ogeyn. dhibkana lala damacsan yahay waa dhab, ee yowsan dheelalaw nagu gelin. walaalayaal, dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibadeeda caalamka waxay qaadaysaa tallaabooyin looga hortagayo xadgudubka Israa'iil. haddii dadka Soomaaliyeed ay la seexan waayeen waxa Netanyahu ku sameynaya shacabka reer Falastiin iyo dadka reer Gaza, ma filayo in shacabka Hargeysa ay aqbalayaan in looga alalaaso dalkeena taliskaas ku caanbaxay xasuuqa shacabka masaakiinta ah. berri inuu annagana xasuuqane wax diidaya ma jiraan. waxaan ku celinayaa oo aan caddaynayaa inaan ka garaabayno, horeyna uga garaawnay dhibkii shacabkeenna ka soo gaaray dulmigii uu geystay nidaamkii militariga ah, gaar ahaan kii loo geystay shacabka ku nool qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya. waxaan sidoo kale caddaynayaa in weli inoo furan yahay jidka wada hadalka ee aan ku xallinayno wixii horay inooga khaldamay. ma khaldame waa Ilaahay. waxaan fariintayda mar kale u dirayaa madaxda Israa'iil. waan leeyahay, Soomaaliya ma ahan dal la qabsan karo, la qaybin karo ama la gadan karo. kuma ladaysaan oo kuma helaysaan waxa aad ku taamaysaan. tani waxay sii kordhinaysaa go'doonka aad awalba dunida kaga jirteen. gabagabadii iyo gunaanadkii, walaalayaal, waxaan aad ugu mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ee ka dhiidhiyey tallaabooyinkan guracan. waxaan u caddaynayaa inaysan xaqiiqoobi doonin damaca Israa'iil. aanna u istaagayno difaaca midnimadeenna iyo madax bannaanideenna, oo aan u hurayno wax kasta oo qaali nagu ah. waxaan u mahad celinayaa ururada caalamka aan xubnaha ka nahay, sida qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, jaamacadda carabta, wadamada islaamka, ururka IGAD iyo ururka suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika. dhammaantood garab istaaggoodii iyo u hiilintii ay Soomaaliya u hiiliyeen waa ka mahad celinaynaa. sidoo kale dowladaha aan walaalaha nahay iyo kuwa aan saaxiibada aan nahay ee nagu garab istaagay ilaalinta midnimada, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed iyo dadeed ee Soomaaliya. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dowladda Mareykanka iyo madaxweynaheeda President Donald Trump garab istaagga ay Soomaaliya ku garab istaageen ilaalinta waxa ay xaqa u leedahay Soomaaliya. guud ahaan inta Soomaaliya garab istaagtay oo dhan waxaan idin leenahay dhammaantiin beerka ka ogsooni. waana idin abaalgudi doonaa insha Allah. waxaan mar kale iyo mar kale cod dheer ku leenahay, ogow, Soomaaliya Soomaali baa leh, iyadaana u tashanaysa.
aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.